munaasabadan oo xilka ku wareejinayay gudoomiyihii hore degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Xuseen Axmed Shiidka isla markaana uu ku wareejiyay gudoomiyaha cusub degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellada Dhexe Umar Maxamed Umar ayaa lagu qabtay xarunta degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellada Dhexe gudoomiyaha degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe Qaasim Cali Nuur oo ka hadlay munaasabada ayaa kula dardaarmay gudoomiyaha cusub ee degmada Warshiiq inuu dardargeliyo horumarinta degmada Warshiiq oo xilligan meel wanaagsan marayso walaalkay waxa kula dardaarmaa Axmed Xuseen Shiidka inuu san dhihin aniga waa la beddelay marka lagu askor saarana nasiinay soo baxday Axmed waa gudoomiyihii Warshiiq waa gudoomiyaha hadda Warshiiq Umarna waa gudoomiyihii hore Warshiiq waa gudoomiyaha hadda Warshiiq inay garba isgashtaan isgarab istaagaan laba walaalo oo hal gacaltooya oo hal saxane oo hal weel oo hal xeera inay noqdaan gudoomiyihii hore degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Xuseen Axmed Shiidka ayaa ka hadlay howlaha horumarineed ee uu qabsoomay muddadii uu hayay xilkaasi الحمد لله وأولها بأهلنا فكا حديقاسين سيدا هوش وصوف ودامني وصوف ودامني توسع الوهرنيني وثارد فدرالك أرمار بلاح gudoomiyaha cusub degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellada Dhexe Umar Maxamed Umar ayaa ka codsaday bulshada ku nool degmada Warshiiq inay la shaqeeyaan wuxuuna tilmaamay inuu dardargelin doono howlaha horumarineed ee ka soconaya degmada Warshiiq waxaan ka codsanaynaa degmada Warshiiq deegaanada ay ka kooban tahay waxay xuduud leedahay bataqaana Xamar Balcad Raagaceelle inta u dhaxaysay ku jirtaa degmada ma ahan kaligeer ma taqaana xaruntan way baaxad weyn tahay intaas inta joogto inta maqan ay maqlaynin waxaan ka codsanayaa inay la shaqeeyaan gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Mayre Makaraan ayaa sheegay in gudoomiyihii hore ee degmada Warshiiq Axmed Shiidka uu wax badan ka qabtay howlaha horumarineed ee ka soconaya degmada Warshiiq wuxuuna kula dardaarmay gudoomiyaha cusub in uu halkeeda ka sii wado gudoomiye Umar waxaan kula dardaarmaynaa gudoomiye meel wanaagsan oo meel wax laga qabto ugu wanaagsan ayaa joogtaa shalay gudoomiyaha markii xilka lagu wareejiyay Shiidka wax meeshan dadweynaha saa u quruxda badan xateemaysan joogin waxa meeshan ka muuqdana ma aalan xafiisyada iyo gudaha hadii loo kaca iska day waxarna marka inaad maartay aad la timaadid shaqo wanaagsan Muuse Ismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho